laakiin ilaa imka de iskoor bay reerkan iyo waxaan isdhaahdaa nin sidii ku jecel sidii isu jarjaray la adarto ما شاء الله horta maxamuud iyo Ifraax qisadood iyo xiriirkooda dawaan iska garanaynaa horta xaafadeena inuu deganay waxay ahayd xaafada dadka degan oo qalbi wanaagsan yihiin laakiin gabigeenu yaraan lagu soo wada degay macnaha dadkii uu waaweynaa markii xaafada degay ma yaqiinsan karno oo dhalinyarada markaa uu ahaa laakiin kacaanadiina mooga dhexdiisa ku kacaamay waa in iswada waji garanaysa xiriir in laba qof xiriirkooda la ogaadaana sir aad u weyn bahay hebel iyo hebel wada Pakistan dheerkii iskuulka lagu qori jiray marka sir weyn oo markaa anigu hayeebahay in maxamuud iyo Ifraax xiriir leeyihiin xaaladda markaynu tagno iyo in 9 sano ka hor aynu guurno sir weyn oo siraha adduunka haya kamida ay ahayd in maxamuud iyo Ifraax xiriir leeyihiin haddaba wax iska caadi ah simbala maanta iyo shalay intii ka horeysayba maxamuud xiriirkiisa iyo Ifraax xiriirkooda markii aan ogaaday waxay sheegtay gabadh imka wadanka ka tagtay alla maxaan abaal u hayay sir weyn oo ay ku sheegtay moogtahay in labada qof isku fiican yihiin oo dabeetana aniguna markaas sheekada bilaabay geed baaniga farabaas ku hayo marka la yaryar yahay baasho aad baa cajiib u tahay ayaa maxamuud iyo Ifraax arinkoodan soo cusboonaadeen oo xiriirkooda maqashiisnaa ay leeyahay Ifraax waa la guursanayaa dabeetana Ifraax baan u yimido meel baan iska fadhiisanay sadaqad horteedii geed dhexdiisa oo de guurka iyo arin weyn oo muhiim ah sidii wax Soomaaliland la itiraafay aad u ahay dabeetana waxa dhacday maxamuud baan inaan markaa waaniga indila sheekada farabaas go'ay inaan markaa isnaqaanay ayaa yiri arrin baa doonayna inaad nala fudaydiso markiiba halkaasano feedback dabeetana balana kii maxamed aaba kadinka fadhiistay walaalkay dicin laayalku jooga baa ku nabad yeelay markuu walaalka dibadda fadhiyo ma soo bixi kartidba war waagay inooga dhiga markaas aan arrin baa dhacday barqan dabeetana ugu tagay guriga waraaba bariyaale maxay haysanay waramo khayro alxamdulillah halkii baan sheekadii dabka saaray waxa la reerkaas dhismay waxa loo baahan yahay si aanu ninkan noo dhiman reerkaasina u dhismin barkaalo ka shaqee arrintan aad u culus tahay because inaan xiriirkooda ogaaba arrin weyn oo culus oo macquul ahayd dabeetana waan ka yimido waaniga Ifraax ku soo noqday alla Ifraaxay wala inankii Ifraax waa تروى بينك وأنت على محين يالنا وحلا وحن يلا ونقرنوين لو رب الله كلا يكون حافظ أبنا ويمدو أرين كمان أنا طورين يجرونتي هل كيبانو إسكا أرنتي ده ملا ملا عيريو محمودنا تينو تلفون كباسين وركاو عصبة مر والبون ساقر عنا هالكي برتي يسيدي سي الله سي أنا حالة دي أقول له دينو أيانو قرن وين رنتي مركز محمود مال ما كم ذا emotionally وحالة ذوبي والله دبتنا إلما يسكسو تاكتي أنا قلنا وين رجع حمسة قرار محاول وحنا دايني قدايو مركز سميو توتشيني يا ولا المية هذا قبلين دوري سأنا قبل نقرص مركز كمان أسرار كودوت اليوم كاس على سيرة يا سيدنا هذا بيلا محمود بارين تشكو نقطة أنا جيو دبتنا وأنا جاي فرح كوسان نقطة دبتنا وحنا نقول من يار ناين لا يسرعوا محمود أرنتها سوي لقروح بدنا ويدي رنتي مشهور بوها ده دون كرب سكدي ركبة معمولة وحن بيرون دينن والد كده ما أنت إلا إنكار ينحدين يودي لوجت فديو هاوشي
deetana markuu maxamuud arrinkaa iska soo yara uu tagay kurwaarni saabama yeelay uu yiri maya hajaay waxaan u aragnaa anagu haweenkurna waa iska xaalad abuur oo in xaalad abuur yihiin nin baa intuu gabadh la guursaday ayuu gabadhiisii ku yiri niyo tiyarad way kadeed macnaha marwadi weyneed buu isleeyahay wax la xamo waxa tiraahdaa adiga berigii nolosheena waxa iska ahayd xaaladaha dhexe oo nolol degan bay isku hadleen dabban cagaha la galay markaas tiyarad bay kadeed hadama anaga weyn u bay tiri macnaha in iyada mudnaanta la siinayo iyo wixii oo dhan way uma muuqanayso wuxuu yaridaas u maystirun xagu ka leeyahay qof weyn baa taa marka anagi waxaan u aragnay maxamuud inuu joodooyin kala leh hajaay oo maba ku jiro yeelkadiis halkii oo mar kale ifraax milxiisad baan u ahaa habeenkii baan aroosa waxaan xasuustaa ifraax markay ka gajaraysay dib ay soo taagtay markaas aan riixay waayo mar haddaan xaaladii soo galnay oo inaan hooyadeedin badan ka yar oo aan islaanta lafteedii fahamtay oo arrinkayga hawada galay ayaan waxa ka meelan ka dhaqaaqmi jirna waa yahay mari u baanin isagana maadaama ka gar joognay maadaama ku dhaqaajintii yarada xaafideen iyo diiday waxaan niri adaa u jeedaray dabeetana waxaan sameynay maxamuud haddana dib aan iska aragno maxamuud markaa wuxuu igu yidhi waxaan isku aragnay niyo dukaanka magaciisa muxuu ahaa dukaan yar oo magac fiican lahaa inaan muxiidiin la yiraahdo inaan farduus la yiraahdo lahaan jireen bartan hereer ku xigay tooni baan isku aragnay dabeetana markaas aan ku war maxamuud iyo waran khayr alxamdulillah dabeetana maxamuud oo aad u moraal jabsan oo runtii tin go'ay oo aad isu bedelay ifraaxna maalmaha kamid baan iyadana isaragnay horta in dheer baan u marayo waxaan isiri hooday maadaama arrinkii hore wax ka ogay inaan kan iyo inaan tan isku fiicnaydeen arrinkoodana deesaantiisa fafaalo ku yara fahmay lahayd waxaad samaysaa deynanta gurigeeda ilaahay qadarkiisa inuu waariyeen kale waa wax ilaahay agtiisa ku maqan laakiin adigu intaad ka dheeraan kartid si aan lagugu tuumin hadii reerkaasi dhismi waayo ama waari waayo ka dheerow ifraax wali gurigeeda maantay laakiin banaanada ilaahay baan isku heli jirno markaas aan isku afrigi jirno dabeetana adigu waxba aan hadal ku daalinne inaan kani waa kii magaalada ka tagay ifraaxana cabaar kadib baan maalin saaragno waxay tiri wallahi niyad kuma jooga meel halka yara ترانا waxaa dawaa saxe ilaahay waxaan ka rajeenayaa inay khayr noqoto aad maaragtay waa la sheegay markaa maxamuud halku tagay inuu ku guursaday laakiin runtii ifraax lamaan wadaagin iyadoo bas gaar ah maqlaysay laakiin oo cidad kale laakiin aniga afkayga maadaama aan ogaa dibta iyo baahida labadan qof iyo halkay kala tageen nolosha maanan ku oran waxba sidaas adigu ifraax aakhirkiina iyadoo aan babaxan is aragnay ilaahay uu nabad yeelo way sarkeen reerkaasina sidaas ku dhismo dabeetana maalmaha kamida ayaan ka arkay Facebook iyadoo soo dhigay in Idris Abdullahi Beershe la yiraahdo maxamuud oo intuu gaarigiisa raacay ay iswaraysteen dabeetana waan ku kamangareey macnaha anigoo dhaaranaya dad badan baa ka hadlayay waxay lahaayeen jacaylka san looma sameyn karayo wax saasa dabeetana waxaan ku qoray wallahi inaan u soo taagnaa oon marageeda ahaa dabeetana waxa dhacday anigii aan noqdo maktabad kale oo laga soo jacayl doonto walaal markaa dabeetana siday yeeleen arrinkaasi waa dabeetana sidoo ku dambeeyay disaas ku dambeeyay wakaas dawaad ogto umada oo dhan ma jawaabi kartid mar kale dabeetana inaan maxamed cabdi boosh la yiraahdo isagana aan isku mihnadnahay baa arrinkii ka soo shaqeeyay aniguna siday ahayd intii aan ka ogaa ayaan ka waramay horta qisadaas ay ahayd kulay questions badan bay lahayd laakiin meelaha u badan ee in la dul istaago u baahan waxa kamid ah maxamuud markuu warqada dhiig gala meesha soo dhigay aniga macnaha wixii soo furay inankii aan xiriir wadaag ahay ayuu waxaad yeeshaa halkaas aynu wax bahalaynayna sida ayeen dabeetana sidii baan aniguna arkay ifraax baan dabeetana u tagay anigoo iska daashoonay waa intii aan markaa ifraax la guursanay duristaag baynu ku samaynaynaa arrinta ka hadalka u baahan waa ay tay jacayl badan way dhacaan laakiin wallahi wali jacaylkan oo kala uma aan soo joogin